magacayga waxaa leedahaa Shariic Cabdikaboose. Shira maanta xagee u socotaa? Waxaan socdaa waddanka Itoobiya Addis Ababa. Sababta u aadaysa maxay? Waxaan aadayaa aniga oo ka mid ah ururka ONLF heshiiska aan ku kala saxanayn annaga iyo Itoobiya dalka Addis Ababa. Goorma ku dambeysay waddanka? Waddanka ilaa iyo maana arkin 40 sano. maxaad filaysaa jawiga maanta markaad tagto? waxaan filayaa wanaag iyo guul inay wax walba noogu dhammaani doonaan oo aanu maaragtay si fiican wax lagu hagaagi doonaan. xasan maxamed baa la yidhaahdaa magacayga. xasan magaalada ka timid? xasan waxaan ka imid magaalada San Diego gobolka State California gobolka magaalada San Diego. sababta u aadaysa Itoobiya maxay tahay? sababtaan u aadaya Itoobiya waxay tahay waxaan ahay xubnihii ONLFta nabadda qaatay marka waxaan u aadayaa shirka nabadda oonu doonayna inaanu shacabka gudaha jooga u sheegna xaqiiqda dhabta ee ka jirta waddanka. goorma ku dambeysay Itoobiya? Itoobiya waxay ugu dambeysay 1991. waqti maxaad filaysaa markaad? waxaan filayaa sida ay dawladda federaalka Itoobiya iyo madaxda jabhadda ONLF iyo dawladda ismaamulka Soomaaliduba ku baaqanaya shacabka shucuurta ka muuqata aan ku aragnayba nabad waarta oo si wanaagsan loo wada qaato oo loo dhameystiro. magacayga waa Ardash Kusudiri. arda sababta Itoobiya aadaysa waa maxay? Itoobiya waxaan u aadaynaa waxaa dhacday dawladda Itoobiya heshiis baa jira waddanka waxaa jira heshiis la kala saxeexday oo marka heshiiskaas inaan maaragtay hawshiisii iyo shirar iyo dadkii ayaa musqul. goorma ku dambeysay Itoobiya? Itoobiya waxay ugu dambeysay والله وقت فوق يقول دمسي وحي يقول دمسي 68 كيلومتر. حافلة سامرك. وحافلة يا وحفي عما وفيلها يا رجفي عما كلينا هاي. تذكرنا أنا ونبض بعوضنا نبض أيام هرس يدينا. تذكرنا إن نبض وين نلقاته أنت ضمان إن نلقاته. قال لي هذا. عمي صوت إثيوبيا وهذا سمعتها. إثيوبيا وحنو آدنا شركة عدو هالكاس أو dadka lagu heshiisiinayo dawladda Itoobiya galanka shanaad iyo jabhadda ONLF intaas lagu heshiisiinayo doonayna inaan ka qayb galo naga casumo. goorma ku dambeysay Itoobiya? waa ina marka aniga igu dambeysay oo Soomaaliya markii dhalatay baan xagga u dambeysay raacay. maxaad filaysaa markaad tagtay Itoobiya? ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa aad iyo aad waxaanu uga rajaynaynaa inuu ilaahay nabad waasaca inuu waddanka ku soo rogo oo aanu aad iyo aad aan intaan uga shaqeyno aanu ku guulaysanaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol. Aaba Cabdullaahi baa la yidhaahdaa. Cabdullaahi sababta u aadaysa Itoobiya maxay tahay maanta? Itoobiya waxaa ka jira dhib baa ka jira dadkanagii oo dhibaatada badan soo maray iyo rafaadka guul aanu kol gaadhnay oonu Itoobiya wax la qaybsannay hellayna calankii aanu u dagaalamaynay isaga oo haddii la sabaa aanu heli kara haddana si inaanu ka gudubno oonu aayahanaga ka talinana naloo ogol yahay yaanu arrintaasu garan weynay tii inaanu dib ugu noqonno oonu hadda ka talinno oonu xuduud baan leenahay calan baan leenahay ummad baan leenahay aanu sharaftooda iyo karaamadooda soo celinno ayaanu u soconnaa taasaanu u tegaynaa haddii la yidhaahdo. goorma ayaa kugu dambeysay Itoobiya? Itoobiya waxay ugu dambeysay 2003. waan gartay maxaad filaysaa hadda markaad? waxaan filahayaa waxyaalaha isku dhaca ah ee dadka walaalaha ka dhaxeeya ee ciidamada isku dadka ah iska hor yimid ee is afgaran waaga laga dhax tuuray in aanu is afgaran aanu ka samayno arrintaasuna sidaa ay ku dhammaato ONLF ay shaqadeedii qabsatay iyo hawsheedii hawlaheedii awal hore ka beer daroobayna ay dib ugu soo noqotay dibna waddanka ugu taliso taasaanu ku talagelaynaa annagu. waxaan leeyahay Cabdirashiid Maxamed Cali. Cabdirashiid sababta Itoobiya aadaysa waa maxay? walaalow Itoobiya waxaan u aadayaa mataqaanaa in barnaamijka nabadda ee hadda socda in aanu xoojino oo aanu ka qayb galno. goorma kugu dambeysay Itoobiya? walaalow Itoobiya waxay ugu dambeysay 1984. maxaad filaysaa Itoobiya markaad tagtay? kolley waxaan filayaa mataqaanaa inuu isbeddel badan ka dhacay intii iga dambeysay khaasatan 2 sano ama 3 sano hadda ugu dambeeyay. waxaad moodaa inuu xogaa isbeddel uu socdo oo ah barnaamijka nabadda oo la xoojinayo marka waxaan ku talagalay inaan barnaamijkaas aanu ka qayb galno oo aanu xoojino. Faaduma Cali Ibrahim.
فاضل صوتها إثيوبيا هذا سوامح إثيوبيا وحنو آديا ما دركتاي dadka naga dayacan ee maartay dagaalada iyo xasuuqa lagu hayo in maartay nabadda u horseedno oo nabadda aanu qaadano adduunyada waxa weeye qalin baa lagu qaataa nabadda maartay in dagaal lagu jiro maartay ma fiicna maartay waqti dheer oo anaguba dhalanin un baa dagaal lagu jiraa waxba wadanka la xoreyn la leeyahay marka waxa weeyaan nabadiidku inuu nabadda qaato dhulkiisii hooyo u soo noqdo oo ma aragtay aanu la heshiino dawladda Itoobiya ayaanu rabnaa dadka badankii way qaateen nabadda inta diidana inay soo gasho oo dhulkoodii hooyo u soo noqdaan oo nabadda qaataan baan rabnaa warma ku dambeysay Itoobiya waxa iigu dambeysay 77kii وقت محاد فيلسا مركز waxaan filayaa ma aragtay anigoo aad ugu faraxsan ma aragtay shirkan ballaaran ee hadda la qabanayo iyo waftigan ballaaran ee ku soconno haddana waxaan filayaa inay nabad ka dhacdo oo farxad iyo ma aragtay wax aad aan ugu farxno inuu ka dhaco dalkii hooyo هذا أحمد مرسل sababta waa Itoobiya maxay tahay waxaan u aadaynaa go'aankii lagu heshiiyay ee ahaa in nabadgelyo ay ka dhalato ONLF iyo Itoobiya heshiiskii lagu wada hadlay saxiixiisii iyo shirweynihii ururka ONLF iyo taageero buuxda in aanu geyno dalka Itoobiya warba ku dambeysay Itoobiya xilli hore ayaa igu dambeysay oo colaad dheer ay naga dhaxaysay colaadii waxa ku bedelay nabad maxaad filaysaa markaas Itoobiya waxaan filayaa heshiis midho dhala oo runtii dagaalkii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed ee kilalku ay soo mareen lagu bedeli doono waxbarasho iyo nabad buuxda iyo mashaariicyo kala duwan iyo dadka oo aayihiisa ka taliya xagga waxbarashada caafimaadka inta